waxaa saaka magaalada Buuhoodle ka dhacay banaanbax ay soo qaban qaabiyeen hablaha Buuhoodle qaar ka mid banaanbaxan laga soo horjeeday dilkii iyo kufsigii loo geystay Caasho Ilyas Aadan oo ah gabadh aad u da'yar oo lagu kufsaday laguna dilay magaalada Gaalkacyo xarunta mud banaanbaxan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Buuhoodle oo halka ka taliyo suugan waxaan u soo baxnay banaanbax aan kaga dhigayno arrinkii qorshe xumeed ee ka dhacay dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo lagu kacay walaashan Caasho oo ah ubaxay mustaqbalka gabadha Soomaaliyeed marka hore faamilkeedii iyo qoyska ka geeriyotay waxaan leenahay ilaahay ilaahay ka siiyo dhammaan gobolada Soomaaliyeedna waxaan baaq ugu dirayaa inay arrinkaas ka dhidhiyaan waa sharaf dhac iyo tacadiyo xun oo lagula kacayo gabdhaheena sharafta lahayd ee Soomaaliyeed haddaynan maanta arrinkaas taaganaynaan ka dhidhiyin waxaa dhici doonta inay gobol walba ka bilaabato ay noqoto wax iska caadiya oo aan qofna ka jawaabin ama ka falcelin ballan ka qaado banaanbaxyada dalkeena Soomaaliyeed aynu ka bilaawno oo aynu tusno dadkii falkaas geystay inaan arrinkoodii ka soo horjeedno ay sharaf dhaca ama tacadiga ay kula kacayaan walaashood hooyadooda habaryartood inay ka qaataan oo halka lagu nuugo إما لله وإنا إليه راجعون ويومك قبلها دار الأمس أميدة إيه كمدة وحا المغرب الأرس ويرادة ترتيبي على الحمدة لا يكر سكر ويشة وحا كلاء الراعة قبلها الصوماليات تلقى السودان ورايا وحا لله أن تسكيد أهم وقل السنة وحوالي أمر الشيء أمر الدالين أمر الأبحين وحوالي ربي الصوماليين وكل ما دعي أدبر الأبحين الهدان اللهي أنه ظلورينك إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون دولة سبحان كعسنا بلدان قارحان وكيا مدحوينها الدني إن عدالة هركينا انتقل مذوب عايشة إلياس waxaan leeyahay waad siqiirtay adduunka adiga raaxay ku hureen nimankaasi laakiin dawladaha waxaan ku xasananaa inay nimanka hor keenan cadaaladda maadaama in cadaaladda hor keenin ogaada siqiir kabiir nin kasta oo kacay uu ku kacayaa dhaqanka iyo dhaqan xunba يقولها تتيادة يقولها حوار سميه لها حماية عنده لها هل يهير لها يرغو على دورها هذين وجه هروني هذين هريق بلا هري هري سيني هن راسي هري هري حاسكيني يرغو على دورها تكتبوا واحد يمشونه تكتبوا هري هنفي النار يقولون في فيديو نوامي الخداه يرغو على دورها عودي أن عباس هري حتى اتصل بي لحي حتى تجمدي لحي حتى توصلي لحي عدو الدين كورنيو عوان مع الصاف هري عشي عدو باكو هري عدو الدين كورنيو عوان مع الصاف هري أما اللي موجودين درانك أي بوشنا رير Buuhoodle ka qabto dhacdadii xumeed ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug runtii wixii Gaalkacyo ka dhacay 26 bishan waxaa wax laga wada xumaaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaanba kufsiga loo geystay walaashan Caasho waxaan dareenka naxdinta iyo murugada la wadaagaynaa waalidkeed ehelkeeda qaraabadii dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabweynaha reer Gaalkacyo maamulka Puntland oo gacanta ku haya magaalada Gaalkacyo waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda la hor keeno nimankii ka dambeeyay kufsiga Caasho Najma Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Bulsha TV magaalada Buuhoodle